بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. habeen wanaagsan dhammaan shacab weynaha reer galmudug meel ay joogaanba saad ogtihiin ama hadda dhageysateen halkan waxaa laga soo saaray ama laga akhriyay liiskii golaha wasiirada xukuumadda cusub ee galmudug muddaan soo daahnay ka badan waqtigii ama ka badneed waqtigii loogu talagalay ama sharciga iyo dastuurka dawladda galmudug uu dhigayay muddadaas waxaan u qaadanay aan ku maqnayn sidaad ogtihiin howlihii muhiimka ahaa ee dhammaystirka ama isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee reer galmudug ee tabashooyinka ama kala duwanaanshuhu ka dhex jiray runtii waxaad ogtihiin inay noo soo qabsoomeen ilaahay fadligiisa howlo waaweyn oo galmudug ugu jira baal dahab ah intaa kadib caawa waxaan soo magacownay xukuumad adag tayo leh hufnaan leh ah runtii labeentii reer galmudug oo aan waxba lagu darayne ay tahay wax cad inay yihiin dadkii ugu habboonaa ama ugu hufnaa ama dhinac walba ugu horreeyey oo magacyadooda iyo aqoontooda aanan halkan sharaxaad badan uga baahnayn waa taariikh cusub ayana inay galmudug inaan xubno ama mas-uuliyiin sarsare oon uga maarmi weynay inay galmudug howlaha muhiimka hor yaalla ka shaqeeyaan inay aqbaleen xilal waaweyn ay hayeen uga soo tageen galmudug inay ka shaqeeyaan dhammaan xubnahaas si guud iyo si gaaraba ugu mahad celinaynaa dadka aan magacownay xubnaha golaha wasiirada cusub aan magacownay kuwa xilka doonayay oo xilka raadinayay uma badna kuwa xilka u baahnaa ayay u badan yihiin ama wada yihiin waxaan leenahay waa fursad iyo jaanis ay haystaan ay heleen reer galmudug waxaan u rajaynayaa inay shaqadooda iyo waajibaadkooda gutaan oo aan insha allah ku kalsoonnahay inay ka soo dhalaali doonaan galmudugna waacus u bari doono xagga shaqada waxaan baarlamaanka ka dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u meel mariyaan insha allah annagoo og inay duruufo caafimaad iyo cudurro adduunka halakeeyay jiraan soomaaliyana soo gaaray haddana sida ugu suurtagalsan in loo meel mariyo si ay u gutaan howlaha muhimka ah ee laga maarmaanka ah ee shaqooyinkii iyo wixii howlihii la qaban lahaa u taagan yihiin in loo meel mariyo xukuumadda cusubna waxaan u rajaynayaa guul horumar iyo inay galmudug meeshay ka sugayso iyo hawshay ka sugayso gaarsiiyaan ilaahay idin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu